kulanti wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada wararka dhambaalka wararka qodobada warkeena aad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqonaya wararkii ugu dambeeyey xaalada magaalada Baydhabo khasaaraha ka dhashay dagaaladii ka dhacay maanta magaaladaasi gudoomiyaha Sheekh Aadan Madoobana amar degdeg ah ayuu soo rogay oo guud ahaanba gurmadkii looga xiray kooxaha mucaaradka ee la dagaalamaya Cabdicasiis Lafta Gareen waxaan idiin soo gudbin doonaa arinta banaanka uu soo dhigay ee la xiriirta dagaalkaas iyo ujeedooyinka laga leeyahay Lafta Gareen haddii looga adkaado dagaaladan qorsheeyay tilaabo uu qaadayo maxaa ka jira in kooxda shabaab uu gacan gelinayo magaalada Baydhabo ciidamada booliiska iyo sidoo kale kuwa militariga Itoobiya waxay kaga baxeen ballanqaadkii ay hore ugu sameeyeen kadib heshiisyadii lagu gaaray Jigjiga Fahad Yaasiin Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur lug nuucee ah ay ku leeyihiin xiisada ka jirta markan wadanka iyo sidoo kale dhaqdhaqaaqyada ka bilowday dowlad goboleedyada ee dumintu ay ugu horeyso diyaaradaha dagaalka ee Turkiguna waxay bedeleen aagagii ay duqeymaha ka cirka ee ka wadeen ee Soomaaliya waxaan idiin soo gudbin doonaa gobolada maalmaha soo aadan ay howlgallada cirka ka bilaabi doonaan meesha caalamka kulan degdeg ah ayay ugu yeertay Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre ujeedka laga leeyahay ayaan faahfaahin idinkaga haynaa daawadayaal inta daawateen qodobada wararkeena daawada ku soo dhaw wararkaasi wararka dhameystiran subscribe saar channelka sidoo kale follow gareey share gareey beeshana waa ku mahadsan tahay daawashada iyo la socodka wararkeena أنه كبلون وحالة مجالات بيدبو أيه ولي عكرن أيه ولي به إذا ماذا لماذا دينا عاي سمين أيان إسباب الحوجان دينا عكلنا دولت قبلات ككوفر قلبيدا يا شعي إن لصاف جري قيب كم إذا كوحد ورك السوق عدي سدا الشيجان إسلامر كان كوسو دوشي دجناها شها مجالات بيدبو يسودك لجريتان كدولت قبلاتك madaxtooyada koonfur galbeed ayaa sheegtay in ciidamadu ay ku jiraan iska caabin Maleeshiya burcada kuwaas oo ka dagaalamaya qaybo ka mid ah magaalada Baydhabo balse waxa ay sidoo kale sheegtay in laga ataal roonaaday oo qaar badan ay gacanta u galeen kuwana la dilay dhinaca kalena mucaaradka ayaa sheegay in ay xagsanayaan gacan ku haynta Baydhabo isla markaana ay doonayaan in ay mar uun ka taqalusaan waxay ugu yeereen rajiim doonaya in uu xilkaas ka sii haysto oo uu bulshada hortaagnaado iyagoo sheegay in ay saacadaha soo aadan ay bulshada ka hor wareejin doonaan waxqabad xumada iyo maamul xumada Cabdicasiis Lafta Gareen ee muddada ka jirtay Baydhabo sida hadalka ay u dhigeen xubnaha mucaaradku xaaladda ayaa weli aan deganayn iyadoo weliba la maqlayo dhawaqa rasaas goosgoos oo hadba laga maqlayo aagaga ay iskaga dhow yihiin labada ciidan waxaana jiray khasaare iskugu jirta dhimasho iyo dhaawac isla markaana soo kala gaartay labada dhinac guriga uu degan yahay wasiirkii hore ee wasaaradda maaliyadda Soomaaliya Maxamed Ibraahim Farkeeti ayaa dhinaca kale waxaa ku xumay dadyo kala duwan kuwaas oo qaarkood ay taageersan yihiin halka kuwa kalena ay kasoo horjeedaan rasaasta la dhacay gurigaas ayaana si weyn looga dareemayay muuqaalo laga soo duubay iyada weliba uu noqday aagga ay ku sugan yihiin ciidamada mucaaradka magaalada waxaa caawa laga dareemayaa dhaqdhaqaaq ciidan oo hor leh iyadoo la xaqiijiyay in ay jiraan ciidan ku biiray dhinaca mucaaradka kuwaas oo ka tirsanaa daraawiishta koonfur galbeed iyo booliiska halka hay'adda nabad sugidda iyo sidoo kale ciidan kalena la xaqiijiyay iyagana in ay ku biireen balse dhinacyada saraakiishaas oo aanu la xiriirnay waxa ay beeniyeen in ay ku leeyihiin xiisada jirta khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca labada dhinacba way ka gaabsadeen waxa ayna qariyeen dhammaanba dhimashada labada dhinac soo gaartay marka laga reebo dadka shacabka oo wararku ay xaqiijinayaan in ugu yaraan 5 ruux ay gaarayaan dhinaca kale gudoomiyaha Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe ayaa qoraal uu soo saaray waxa uu kaga jawaab celiyay xaaladda ka jirta Baydhabo taas oo aan ahayn mid Baydhabo ku kooban balse ah waji iyo sidoo kale jawi cusub oo galaya dalka isla markaana leh walwalkiisa iyo walaaciisa gudoomiyaha Sheekh Aadan Madoobe ayaa ciidanka qalabka sida qaybahooda kala duwan iyo sidoo kale siyaasiyiinta iyo maamulka waxa ugu baaqay in ay ka fogaadaan ku lug yeelashada sii wadida daadinta dhiigga muwaadiniinta Baydhabo waxaana sheegay in aan loo dulqaadan karin waqtigan in la abaabulo dagaal dadka la isku laayo oo la iskaga horkeeno xilli oo furan yahay dagaal xaq ah oo ah midka qawaariijta lagula jiro sida uu sheegay gudoomiyaha Sheekh Aadan Madoobe waxa uu sheegay in horeyba uu ballan qaaday in wada hadal iyo sidoo kale isla fariisiba lagu xalinayo tabashooyinka iyo khilaafka siyaasadeed ee hore uga jiray deegaanada koonfur galbeed balse xilligan xabadda la bilaabay ay tahay mid nasiib darro ah
oo burburinaysa dhammaanba itijaahigla lahaa. dhinaca kalena ciidamada Itoobiya iyo Cabdicasiis Laftagareen uga baxay ballanqaad ay horey ugu sameeyeen. Cabdicasiis Laftagareen ayaa horey waxa uu ballanqaad kaga haystay dowladda Itoobiya, iyadoo weliba loo ballan qaaday in kursiga loola difaaci doono islamarkaana maamulkiisu uu noqon doono mid baaqi ku ahaada gacanta ciidanka Itoobiya oo iskugu jira military iyo booliis, islamarkaana ka howlgala magaalada Baydhabo iyo sidoo kale xuduudaha kala duwan ee Koonfur Galbeed Soomaaliya. heshiiskaas oo lagu gaaray magaalada Jigjiga ee xarunta dowladda deegaanka Soomaalida ayaa guuldaraystay kadib markii heshiisyo kale ay wada galeen dowladaha heer federaal ee Itoobiya iyo Soomaaliya mas'uuliyiintooda, waxaana Laftagareen ugu dambeyntii uu ka dalbaday in ciidamada Itoobiya ay kusoo biiraan dagaalka si loo soo afjaro kooxdan islamarkaana hal mar looga takhaluso. waxayse ku wargeliyeen inaysan xilligan diyaar u ahayn inay ka qayb galaan dhaqdhaqaaqyada noocaas oo kale ah, iyagoo sheegay in waajibaadkooda uu yahay in ay la dagaalamaan kooxaha xagjirka, sidoo kalena ay ilaaliyaan cid walba oo ka baxsan maamulka Koonfur Galbeed iyo bulshada deegaanka oo kusoo duusha magaalada Baydhabo. intaasi kadib madaxweyne Laftagareen ayaa la sheegay in uu bilaabay qorshe in uu magaalada dhanba gacanta ka saaro haddii ay isku dayaan mucaaradku inay xoog ku jiraan maamulkiisa. kooxda shabaab oo maalmo ka hor ka dagaalantay deegaanada aaga Goofgaduud, Manaas iyo sidoo kale Daynunai ayaa la xaqiijiyey in suurtagal ay tahay in Laftagareen uu gacan geliyo magaalada, maadaama uu yahay nin mayal adag oo aynan haba yaraatee ka muuqanin in uu tanaasul sameynayo kuna adag kursiga. marka uu dareemo culays ciidan ayaa suurtagal ah in magaalada ay kusoo dhex dhuuntaan ciidankiisa dagaalamaya kooxaha magaaladaasi ku hareereysan ee doonaya mar in ay gacanta ku dhigaan, si ciidamada Itoobiya aynan u dareemin iyo ciidanka kale ee ku sugan magaaladana waxay suurtagal ah inay ku dhex dhuuntaan ciidamada qalabka sida ee Koonfur Galbeed xilligan u taagan in ay difaacaan kursiga madaxweyne Laftagareen waqtigiisu waa ilaaday, welina wuxuu ku adkeysanayaa inuu yahay madaxweynaha Koonfur Galbeed. dhinaca kalena waxaa la aaminsan yahay in dhaqdhaqaaqyadan ay ku lug leeyihiin oo ay kala taageerayaan siyaasiyiinta kale ah Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo xafiiska madaxweynaha Soomaaliya ka tirsan iyo sidoo kale Maxamed Cabdullaahi Farmaajo golaha shacabka ka tirsan iyo Fahad Yaasiin Xaaji Daahir oo kursigiisii golaha shacabka dibadjoog ka noqday, kuwaasoo la aaminsan yahay inay kala taageerayaan siyaasiyiinta iyo dhinacyada isku haya magaalada Baydhabo. diyaaradaha dagaalka ee dalka Turkiga ayaa bedelaya aagaga maalmihii lasoo dhaafay ay duqeymaha ka wadeen, iyagoo jiha cusub la xaqiijiyay inay ka bilaabayaan howlgalka xagga cirka ah ee ay ku taageerayaan ciidanka lugta ee Soomaaliya. diyaaradaha dagaalka ee Mareykanka iyo Turkiga ayaa xoogga saari doona qeybo ka mid ah bartamaha Soomaaliya, gaar ahaan Mudug iyo Galgaduud, sida ay xaqiijinayaan warar lagu kalsoon yahay. waxaa dhammaaday wejigii koowaad ee howlgalka duqeymaha ee ka socday gobolada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe, waxayna noqonaysaa in ciidanka ku sugan aagga Shabeellaha Dhexe ay sameeyaan hanaan diyaargarow cusub oo kale oo dagaal, halka diyaaradahuna ay duqeymahooda ka bilaabi doonaan dhinaca maamulka Galmudug, iyagoo gacan siinaya ciidamada daraawiishta Galmudug ee aagga gobolka Mudug iyo sidoo kale Galgaduud oo ay gacan siin doonaan jihooyin cusub oo Galmudug ay doonayso inay ku dhaqaaqdo. ugu yaraan diyaaradaha dagaalka ee Turkiga iyo Mareykanka ayaa la aaminsan yahay in ay dileen in ka badan 500 oo xubnood oo ah kuwii la dagaalamayay ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka, wixii ka dambeeyay markii howlgallada ay ka bilowdeen si toos ah deegaanada gobolada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe. Shabeellaha Dhexe ayaana noqday wejigii koowaad iyo soo afjaristiisa, iyadoo wejiga labaad uu si toos ah kaga bilaabanayo gobolada Mudug iyo Galgaduud, markan oo ciidamada labada dhinac ay ku jihaysan yihiin. Turkiga ayaa gacan siinaya ciidanka lugta ee Soomaaliya, gaar ahaan ciidamada militariga iyo kuwa deegaanka. waxaa sidoo kale Mareykanku asna uu taageeraya ciidamada uu tababaraya danab ee militariga Soomaaliya, kuwaasoo qayb ka ah howlgalkan dagaal. ugu dambeyntiina ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa loogu yeeray kulan gaar ah oo ay leeyihiin wakiilada beesha caalamka, kaasoo diiradda lagu saarayo xaaladda Soomaaliya iyo sidoo kale qalalaasaha ka muuqda dowlad goboleedyada.
wakiilada beesha caalamka ayaa ra-iisul wasaare xamse cabdi bare iyo xukuumaddiisa ka dalbaday inay la timaado istiraatiijiyadda siyaasadeed ee badbaadinta dadka deegaanka iyo sidoo kale ka fogaanshaha gacan ka hadal ka qarxa magaalooyinka dowlad goboleedyada xarumaha u ah in lasii wado dembiyada ay ka midka yihiin baraakicinta iyo sidoo kale daadinta dhiigga muwaadiniinta iyo sidoo kale qalqalgelinta hantida iyo baabi-inteedu waxay ka mid yihiin arrimaha ay la wadaagayaan xukuumadda islamarkaana mas-uuliyadda gaarka ee ka saaran wadanka iyo sidoo kale in dowladdu ay hoos u dhigto doorka ay ku yeelan karto guud ahaanba dhibaatooyinka dhacaya oo ay baydhabo ugu horeyso markan ra-iisul wasaare xamse ayaa la xaqiijiyay in beesha caalamka uu la wadaagay in